بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين soo dhawaada jaalayaal bismillah waxaan ku ballansaneen inaan bilowno chapterkeenii koowaad ee maadada businesska annagoo soo sameynay hordhaceena. Okay, hordhaci waxaan uga soo hadalnay siyaabaha ay tahay inaan ku waajahno ama inaan wax uga qabanno ama aan u qaban doono insha Allah intay socoto ku horsadaan. Chapterkeena koowaad waxaa lagu magacaabaa financial statements. Financial statements ayaa la financial statement waa maxay marka? Financial waa maaliyad, statementsna waa bandhig maaliyadeed. Waxaan rajeynayaa chapterkan markaan dhammayno bandhig maaliyadeed maxaa la lahaa inaad adiga gacantaada ku samaysto. Financial statement waa bandhig maaliyadeed. Financial statements waa bandhig maaliyadeed. Introduction hordhaceen aan u maano. Dhammaan ganacsiyada la sameeyo ujeedada ugu weyn horta ganacsi loo sameeyo wax badan oo ku soo celin waxay tahay waa in faa'iido laga sameeyo. The main objective of ganacsi loo sameeyo waxay tahay in faa'iido laga sameeyo. Laakiin si walba ha ahaatee inuu ganacsigu faa'iido soo saaro iyo inuu khasaaro soo saaro waxay si weyn ugu xiran tahay sida uu hadba u shaqeeyo. Ganacsiga hadduu si xoogan u shaqeeyo si faa'iido ayuu soo saarayaa. Hadduu laakiin si daciif u shaqeeyo faa'iido badan sooma saarayo. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in dadka ganacsatada ah ay ogaadaan inay faa'iidayaan iyo inay khasaarayaan, ganacsigooduna faa'iido soo saarayo iyo inuusan faa'iido soo saarin oo khasaaro soo saarayo. Okay, si uu u ogaado marka qofkan ganacsadaha ah waxa uu soo saarayo ma faa'iida mise waa khasaare ayaa waxaa loo baahan yahay inuu diyaariyo financial statements bandhig maaliyadeed inuu diyaariyo. Bandhig maaliyadeed maxaa ahayd marka? Bandhig maaliyadeed waxaa loo yaqaanaa these are statements kuwan waa bandhigyo that are kuwaasoo prepared la diyaariyo to determine si loo ogaado overall effects saameynta guud ahaaneed of transactions ay lahaayeen macaamiishii of a business oo ganacsi uu sameeyay wax isweydaarsigii uu sameeyay ganacsigu on the financial position markii loo fiiriyo heerka maaliyadeed. Position waa booskii ama heerkii, financialna waa maaliyadii, heerka maaliyadeed of the business ee ganacsigu uu joogo. Financial statement waa marka these are statements kuwan waa bandhigyo oo wax lasoo bandhigayo that are prepared kuwaasoo la diyaariyo to determine si loo ogaado overall effects saameynta guud ahaaneed oo yeesheen of transaction waxaa loola jeedaa wixii uu ganacsigaanu sii iibiyey, wuxuu soo iibiyey, waxna saas ka iibina waxna saas soo iibsanaya sax waxaas ayaa waxaa loo yaqaanaa transactions. Adiga macaamilaadkii ama wax isweydaarsigii guud ahaaneed of business ee ganacsigu sameeyay on ayadoo loo fiirinayo the financial position heerka maaliyadeed of the business ee ganacsigu uu joogo. Ganacsiyada qaarkood kuwa yaryar kuwan waa weyn yihiin. Kaas waa mid. Financial statements are also known as sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa final accounts. Waa isku mid. Magaca labaad ee financial statements loo yaqaan waa maxay? Final accounts ayaa loo yaqaanaa. Okay, financial statements-ku meeqa nooc ayuu u qaybsamaa? They include waxay isugu jiraan saddexda nooc: trading account, profit and loss account, balance sheet. Inta muhiimka ah oo cashirka ku jirto ayaa ina soo qaado ayaa meeshan keenaya oo sidaas ku sharxaya. Adigana waxaa laga rabaa inaad calaamadeysato hadalka kaleeto luqadda ahna caadiyan adaa dictionary-ga inaad la tagtid kor sharaxan karo wixii ku adkaadan caadi ay soo weydiin kartaa.
These are marka waa maxay statements waa bandhigyo maaliyadeed that are prepared taasoo la diyaariyo to determine si loo xaqiijiyo of all effective saameynta guud ahaaneed of transactions ee isweydaarsi of a business ee ganacsiga on the financial position markii loo fiiriyo heerka maaliyadeed of the business ee ganacsiga. Financial statements are also known as sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa final account ayaa loo yaqaanaa. Maxay isugu jiraan marka they include waxay isugu jiraan financial statements kan bandhigyada maaliyadeed la sameynayo saddexda nooc. Kow, trading account, profit and loss account, balance sheet sidaas ay isugu jiraan. Goormaa la diyaariyaa marka bandhigyada maaliyadeed? These statements bandhigyada maaliyadeed are usually badanaa prepared waxaa la diyaariyaa at the end of trading period xilli xisaabeedku markuu dhammaado gabagabadiisa ayaa la diyaariyaa. Afar su'aal ayaa meeshan ku haystaa. Kow, financial statement maxaa la dhahaa? Magac kaleetoo loo yaqaano, inta noocay yihiin iyo goormaa la diyaariyaa. Xilli xisaabeedka markuu dhammaado ayaa la diyaariyaa. Xilli xisaabeed maxaa la dhahaa marka? Meesha erey kaleetoo muhiim ah noo soo baxay. Trading period xilli xisaabeed. Xilli xisaabeed maxaa loo yaqaanaa ama xilli xisaab xir maxaa la dhahaa? Hadda arki doonaa isagan. Concept of trading period. Fikradda ama fahamka trading period xilli xisaabeed. Xilli xisaabeed maxaa loo yaqaanaa fikraddiisa? Fikraddiisu maxay tahay? The trading period xilli xisaabeedku refers to waxaa loola jeedaa the time waqtiga the time frame muddada waqtiga ay qaadanayso in which kaasoo business ganacsigu undertakes uu ku fulinayo its trading activities howlihiisii ganacsi uu ku qabsanayo. Are we clear? Wacadna mo warkaas wacadi. The trading period waqti muddo xisaabeedku ama xilli xisaab xirku refers to waxaa loola jeedaa the time frame waqtiga the time frame isku qabo waa waqtiga within which kuwaasoo a business ganacsigu undertakes uu ku qabsanayo its trading activities howlihiisa ganacsi uu ku qabsanayo. Trading period maxaa la dhahaa? Xilliga xisaab xirku waxaa loola jeedaa waa xilliga uu laga soo bilaabo maalinkaad ganacsigaaga furtid ilaa iyo maalinka aad xisaab xirka sameynayso inta u dhaxaysa waxaa loo yaqaanaa trading period. Si sahlan. Trading period a trading period is also known as asna sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa accounting period xilli xisaab xir or financial year sanad xisaabeed waa isku mid. Xilli xisaab xir muddada xisaab xirka sanadka xisaabta waxaasna waa isku mid. Saddex magac uu leh trading period, accounting period, financial year isku mid waa. Okay, markii la sameynayo marka xisaab xirka la sameynayo ganacsi walba waa nooc waa kala duwan ganacsiyada. Kuwa qaarkood waxay sameystaan saddex bil buu sameystaan. 3 bil markuu qofkan uu shaqeeyo hal mar xisaabta iska xiraa. Kuwa qaarkood 6 bil ayay xirayaan. 6 bil markay shaqeeyaan hal mar xirayaan. Kuwa qaarkood waxay sameynayaan markii ay shaqeeyaan sanad ayay xirayaan. Hadba laakiin inta ugu badan waa maxay? Sanad ayaa la xiraa. Therefore marka waxaa jiro xilli xisaab xirka markii la sameynayo sanadada ayaa la fiirinaya badan inta badan. Marka 2 sano 2 nooc 2 sanadii oo kala duwan ayaa jiro. Sanadna wuxuu ka bilowdaa sanadka bisha bilowgiisa January ayuu ka bilowdaa koodeeda ilaa iyo December 31. Lacala ganacsiga anaga waxaan bilaabaynaa 1 January ayaan bilaabaynaa. Waxaan xiraynaa 31 December kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa calendar year ayaa la. Waa calendar year. Waa yeerka ama sanadka calendarka caadiga darbiyaha ku suran ayuu la mid yahay. Okay, fiscal year macnaheedu waxay tahay lacala tusaalahan meeshii aan ganacsiga ka bilaabayna January ma ka bilaabayno waxaan bilaabaynaa lacala tusaalahan sanadka dhexbartamihiisa oo kale ayaan ka bilaabaynaa. Bisha May oo kale waxaan bilaabaynaa ganacsi. Bisha May koodeeda ayaan ganacsiga bilaabaynaa. Ganacsigu waa in hal sano dhammaystiran uu soo shaqeeyo lacala ka soo qaad. May koodeeda haddaan bilowno ganacsigan goorma xiraynaa? Waxaan xiraynaa 12 bilood shaqo 12 bilood tirso. May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April 30keeda ayaan xiraynaa ganacsigaas. Fiscal year ayaa la. Haddii sanadku ka bilowdo bisha sanadka bilowgiisa January hadduu ka bilowdo December ku dhamaado calendar year ayaa la. Hadduu meel kale ka bilowdo ama February ka bilowdo ama bilaha kale ka bilowdo bisheeda kale tan uu ku dhamaadana waxaa loo yaqaanaa fiscal year. Fiscal year calendar year waa kala fahansan. Trading period maxaa la magacyada kale loo yaqaano sanadada meeqa loo qeybay. Ganacsiyada badana 3 bil mar la xiraa. Kuwa qaarkood bil loo xirtaan
kuwa qaarkood 6 bilood mar, kuwa qaarkoodna sanadkii mar. Aan u imaan marka bandhigyada maaliyadeed ee la sameeyo 3 nooc ayaa usoo qaybin sax. 3 nooc waxay kala hayeen trading account, income statement, profit and loss account iyo balance sheet. Taas soo qaybin midkeena koowaad aan u imaan marka. Midkeena koowaad waxaa loo yaqaanaa trading account. Trading account ayaa loo yaqaanaa. Trading account oo maxaa ahayd adiga? Trading account oo maxaa ahayd? Okay. Trading account is a financial statement. Waa bandhig horta marka ugu horeysa aan isla fahanno. Waa bandhig maaliyadeed kaasoo uu diyaariyo ganacsigu si uu u ogaado war ma faa'iido ayaa joogtaa mise khasaaro. Laakiin dhinacaad ka fiirinayso waxay tahay badeecada aad iibsid. Lacala dukaan laata ka soo qaad ama waxaad leedahay xarun ganacsi aad leedahay. Xaruntaada ganacsi ma faa'iiday mise ma khasaartay? Dhowr dhinaca laga fiirinaa. Dhinaca laga fiirinaa waxaa ka mid ah dhinaca hantida, dhinaca beec. Badeeco badan ma iibisay oo lafahaagii iyo faa'iidadaadii yaa badan, taasaa la fiirinaa. Badeecada aad iibisay midaad adiga soo iibsatay iyo midda aad iibisay ayaa la isbarbar dhigayaa. Taas waxaa loo yaqaanaa trading account. Trading account waa maxay? Waa bandhig maaliyadeed kaasoo lagu ogaado ganacsiga uu diyaariyo si uu ogaado inuu ganacsigiisa faa'iido sameeyey iyo inuu khasaare sameeyey inuu si uu ogaado. Okay, laakiin dhinacee laga fiirinaa? From the sale of its stock. Dhinaca badeecada. Qofkan badeecadii uu soo gatay ma ku faa'iiday mise ku khasaaray? Uu iska sii iibi. Badeecada soo gadatay oo sii gaday ma ku faa'iiday mise ku khasaaray? Okay. A trading account waa maxay marka? Is a financial statement waa bandhig maaliyadeed that's prepared taasoo uu diyaariyo by a business ganacsiga uu diyaariyo to determine si uu ogaado its profit ma faa'iiday or loss ama khasaaradiisa. Laakiin dhinacu ka ogaana waxaa muhiim ah inaad ogaatid trading accountku from the sale iibkii ama beecii uu ku sameeyey of its stock badeecadiisa. Stock ereyga badeeco waa goods camal la mid tahay. Ereyga goods waa erey Mareykan luqadda American accent waa lahjada America kasoo ku jira. Stockna waxay ku jirtaa British accentiga waa. Okay. From the sale of its stock badeecadiisii uu sii iibiyey wax faa'iido ma ka helay mise wuu ku khasaaray? Taas waa kow. Trading account ayaa lagu ogaanaya. The term stock ereyga stock ama badeeco refers to waxaa loola jeedaa inta kugu sharxa the goods badeecada bought uu soo iibsaday by a business ganacsiga uu soo iibsaday. Marka hore asaas soo iibsaday. Laakiin dantu kala maxaa waa for the purpose taasoo ujeedadeedu inay tahay of resale inuu dib u sii iibiyo. Of resale inuu dib u sii iibiyo. Okay. In trading account waa isla fahanaysaa stock iyo trading account waa isla fahanaysaa ma? In trading account markaan joogno comparison isbarbardhig ayaa isdhan waxaa lagu sameynayaa between inta u dhexeyso laba shay ayaa isbarbardhig ku sameynaynaa. The cost of goods sold wax loo yaqaano. Cost of goods sold waa maxay? Cost waa qarashka of goods badeecadii sold aan iibinay and iyo the money lacagtii raised aan ka helnay from their sale iibkooda. Iibintaasi iibin faa'iidada aan lacagta aan ka helno. Si sahlan markaan ku sharaxo. Ganacsigan marka lacag tusaale ka soo qad bakhaar xaafadda kuleena. Bakhaarkeena waxaa la lahaa alla bari ka soo qaato tusaale. Ganacsigeena waxaa la alla bari. Ganacsigeena alla bari anaga waa baxnay bakhaaraan tagnay bur iyo bariis iyo alaab badan soo gadanay. Dukaankii keensan. Taas waxaa burkaasi bariiskaas aan soo gadanay alaabta soo gadanay lacag aan nooga baxay Soomaa. Lacagtaas waxaa loo yaqaanaa cost of goods sold. Badeecada aan iibinayno qarashka ee noogu fadhiso. Badeecada anaga iska iibinayno qarashka ee noogu fadhiso ayaa loo yaqaan. The money raised anaga dukaanka marka bakhaarka aan keensanana waan sii iibinayna Soomaa. Anaga ina cunno bakhaar u keensan waa may waa in iska sii iibinaa. Iibintaas aan sii iibinaynana waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa lacagta sale-kii aan sameynay. Okay. Meeshaan marka laba shay ka dhalanayso. Marna anaga wax soo gadanayno waxna laga soo gadaa waxaa loo yaqaanaa cost of goods sold. Marna anaga ayaa wax sii iibinayno waxaa sameynayna sales. Labada shay la isbarbardhiga. Macallin haddii waxaan anaga saleskeenu hadduu ka bato lacagta aan wax ku soo iibsanay costiga iyo saleska isbarbardhig
haddii costigeena uu ka bato saleskeena yaa badanaya costiga yaa laga badana saleska. hadduu saleskeena uu ka bato costigeena lacala hal xab ka soo qaad hadduu costiga uu ka bato saleska khasaare ayaan joognaa. qarashkaan anaga dukaanka wax ugu soo iibsanay haddii ay ka bataan qarashka aan anagu wax ugu soo qarashka aan anaga wax kusii iibino waxaa loo yaqaanaa waa khasaaro. laakiin haddii qarashkaan anaga wax ku isaga iibino baqaarka aan uga bixinay uu ka bato kii aan anaga wax kusoo iibsanay faa'iido ayaan joognaa. if haddii the sales revenue dakhligana soo galay sales markaan sameyno anaga markaan anaga wax iibino waxaan lacagana soo gala sooma lacagtaasna soo gasho waxaa loo yaqaana sales revenue. if haddii the sales revenue dakhligana soo galo is greater than uu ka weyn yahay the cost of goods qarashka ay ku fadhiso badeecadaas the difference farqiga is referred to as waxaa loo yaqaanaa gross profit. faa'iido duuduub ayaa la faa'iido duuduub lama kala saaray faa'iido duuduub ayaa la. haddii laakiin if haddii dhinac kale hadan aan vice versa hadan dhinac kale u fiiri if haddii isla jumladaas ku soo celi if haddii the sales revenue dakhligana soo gala meesha is greater than waxaa ka dhigta is less than uu ka yar yahay the cost of goods sold the cost of goods kharashka badeecada aan anaga kusoo gadnay uu ka yar yahay dakhligana soo gala yaa yar dakhligana soo gala yar the difference farqiga soo baxa is referred to as waxaa loo yaqaanaa gross loss ayaa la dhihi doonaa. warkaas fahaniya gross loss ayaa la dhihi doonaa. trade account maxaa la lahaa waa bandhig maaliyada la sameeyo ganacsi uu sameeyo si uu ogaado faa'iidada khasaaradooda. laakiin asoo ka fiirinayo maxaan soo iibiyey oon sii iibiyey. erga stock maxaa loo yaqaanaa waa badeecadu ganacsiga soo gadanta weyn uu ka leeyahay tahay inuu sii iibiyo. trade account maxaa la lahaa waa barbardhig lagu sameynayo laba shay badeecadan qarashka aan kusoo iibinay iyo midka aan kusii iibinay. midka aan kusoo iibin waxaa la lahaa cost of goods kan aan kusii iibinayna sales revenue. haddii sales revenue-geena uu ka bato dakhligeena haddii sales revenue-geena uu ka bato dakhligeena waxaa loo yaqaanaa sales revenue dakhligeena waxaa loo yaqaanaa gross profit. haddii sales revenue waa dakhligeena uu ka bato cost of goods qarashka aan galayno farqi waxaa loo yaqaanaa gross profit. laakiin haddii sida kale tee dhacdana waxaa loo yaqaanaa gross loss. anu maana marka format maal waxaa loo yaqaanaa markii waa la diyaarin waxaan xisaabayna la gali doontaa. markii la diyaarinayo see loo diyaarinayaa laba qaab ayaa loo diyaarin macal. miduna waa mid qaacida ah oo qaacid ahaan ayaa lagu sameeyaa sida cashirkiina warqadda caadi kugu qoran. gross profit waxaa lagu helaa sales oo iibka aan anaga sameynay ah oo laga jiro cost of goods sold badeecadaas aan anaga soo gadanay qarashkii noogu fadhis. war badeecada anaga waxbaa kusoo gadna sooma waxna waa kusii iibinay wixii aan kusii iibinay oo laga jaro wixii noogu fadhisay lafiya oo laga jaro waxaan kusii iibinay faa'iido ayaa meesha faa'iido duub ayaa meesha kasoo baxaysa. taas waxaa loo yaqaanaa statement form. qaacid ahaan aan ku diyaarinayna qaacid ahaan ayaa ku diyaarinayna markaas. laakiin mar kaleeto waxaa jirto la diyaarinayo shax ama table la rabo in la diyaariyo. format marka qaab dhismeedka uu leeyahay trading account-ka qaab dhismeedkiisa aan ogaan. trading account-ka formatkiisu macal waxay tahay marka la diyaarinayo kow marka ugu horeyso waxaa qasaba in la diyaariyo title wax loo yaqaano. title-ku 3 shay ayuu ka kooban yahay. kow ganacsiga magaciisa magaca ganacsiga. labo waxaa lagu hoos qorayaa ereyga trading account ayaa lagu hoos qorayaa. 3 waxaa qasaba in la qoro taariikhda la diyaarinayo xilli xisaab xirkan. marka intaas la sameeyo ayaa haddana waxaa la sameynayaa xariiq anaga hadda caadi u sameyn doono ila socda meeshaan sidaan u sameynayo. marka la sameynayo trading account marka la sameynayo kow marka hore waxaa la diyaarinayaa dhahno waa maxay waxa ugu horeeya la diyaarinayo waa title sax title ayaa la diyaarinayaa. title-ku wuxuu ka koobnaan 3 shay magaca ganacsiga word of trading account erga trade account waana soo qaadataa iyo muddada xisaab xeerka aad sameynaysid waa inaad qortaa. title-ku waa mar ganacsiga horta magaciisa kow Allebari business wuxuu doonto qora ganacsiga noocu doon ha ahaado ganacsiga magaciisa waa ku qortaa. 2 waxaa qoraysaa trading account ayaa la qorayaa. 3 muddada ayaa qoraysa aan diyaarinayna 31 bisha December 2021
19 2018 xilliga xisaabta sameynay intaas waa inaad soo cadeysaa waa inaad soo dhexbartamaha ayaana ku qoraysaa xisaabta ku daraya maxaa ku qoraysaa dhexbartamaha ayaa ku qoraysaa okay dhexbartamaha markaa ku qortid waxaan kan adaa kuu fahansiino hadda sabuuradii maadaama aanan haysan hadhowd marka xariiqayaa saas usoo qaadanaysaa hoostaa ka xariiqay marka hoos sidaas aada uga xariiqdo waxaa hoostaan meeshaan ka sameynaysaa adig dhismo sidaan oo kaleeta ayaa meeshaan ka sameynaysaa okay dhismahan laba dhinac ayuu leeyahay ujeeda dhinacan waxaa la lahaa dhinacan waa dhinaca bidixdaada dhinacan kaleetana waa dhinaca midigtaada dhinacan waxaa loo yaqaanaa credit side dhinacan waxaa lagu qoraa wixii cost iyo waxyaabahaas ayaa lagu qoraa dhinacan waxaa la debit ayaa la debit side waxaa lagu qoraa sida meeshaan kuugu cadba debit side waa maxay the cost incurred qarashka la galay ayaa in making goods available si looga dhigo goods badeecada available mid u diyaara for sale in la iibiyo are listed halkan ayaa lagu sharaxaya credit side-na waa maxay credit side-asna waa maxay the revenue dakhliga ama lacagtii generated na soo gashay from the sale iibintii aan sameyn of goods badeecada are listed asna dhinacan ayaa lagu qoraya okay sida meeshaan kaa muuqato marka ganacsiga magaciisa intaan waxaa la isku dhahaa title ganacsiga magaciisa trade account iyo taariikhda intaan waxaa la isku dhahaa trading account waxaa la isku dhahaa title ayaa la isku dhahaa dhinacan inta waxaa ku qoraysaa meeshaan waxaa ku qoraysaa debit ayaa ku qoraysaa debit ayaa ku qoraysaa dhinacan waxaa ku qoraysaa credit ayaa ku qoraysaa credit debitka waxaa loo soo gaabiyaa dr ayaa loo soo gaabiyaa debitka waxaa loo soo gaabiyaa dr ayaa loo soo gaabiyaa debit side ama bracket furo haddii waxaan waa idii qoranyaa dr sidaas ayaa loo soo gaabiyaa cr kana sidaas ayaa loo soo gaabiyaa debit waa maxay waa debit side-ka dhinaca lagu qoro qarashka aan anaga wax kusoo iibsanay anagaa lacagta bixin credit side waxaa loo qoraa qarashka aan anagu wax isaga sii iibinay ayaa lagu soo qoraa okay intaas haddaad ila fahantay waa very good haye cashirkeena kuwaad insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hadday wax su-aal qabto isoo weydii hana hilmaamin fadlan inaad subscribe saarto channelka si aad hadhowdii wixii macluumaad aan soo gelinaba ay hore kaaga soo dhacaan ood u ogaato mahadsanidin